بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعشر كي لباد كتاب كي جورك كساب سنة كتاب كلا هذا إرشادك إرشادك وكتاب كوين وفقه أوليه ابن المقرئ مركا قيبتي جورك أيان حلقدي كوباد وكور رميسي khasaaista nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalahi nabi maxamed ilaahay ku gooni yeela qeyb ka mid ah aan uga soo hadalnay casharkeena hadda waxaan ka bilaabi doonaa muqadamada guurka horudhaca waxyaalaha ah ee guurka marka wuxuu yidhi faslun fasalkani wuxuu ka waramayaa fii muqadimaati nikaaxa waxyaalihiisii horudhaca ahaa iyo wamaqaasidihi guurka waxyaalaha looga gol leeyahay wuxuu marka ku bilaabay sheikhu axkaamu nikaax si guud oo uusan dhammaystirin ku bilaabay nudiba waxaa la sunneeyaa liqaadirin qofka awooda waxaa loo sunneeyaa kaasoo taaqa ishtiheeyey oo guur ishtihaynaya aw taraka ama ka tegay atacabuda cibaadaysigii nikaaxun guur ayaa loo sunneeya waa axkaamu nikaax sida aan sheegnay laakiin mas'alo kaliyuu hadda halkan ku sheegay laba qof iskugu jirta guurku mar sunuu noqdaa mar waajibuu noqdaa mar waa laga fiican yahay mar xaaraamuu noqdaa qaybahaasoo dhan kitaabka uma banbixin hadda warkana ma rabna inaan badino marna sunu noqda markii uu sunnada noqonayo hadda kuu sheega wuxuu yidhi qofkii guurka awooda oo yacni qarashkii haysta uhbatu nikaaxu haystaa man istataaca minkum albaa'a baa-adiyu haystaahoo yacni qarashkii uu biilka gabadha maalinkaasi habeenkaas ku biili lahaa labiskii waqtigeedaas wuxuu guriga ugu dhigi lahaa sidoo kale galmadiiu awoodaa waana taa'iqo waa ishtihaynaya hoo shahwo ayaa haysa iyo dareen labada shardi qofkii laga helo iyo qofkii awooda oo qaadirah aanan cibaado ku mashquulayn taraka tacabuda lagama wado qof aan tukanayn oo soomayn oo salaadayn yacni qof cibaado u gogo-ay maahan qof cibaado u gogo maana shantiisa waajibaadkiisu la yimaadaa waana danihiisa kale waa qabsadaa guurkiina waa awoodaa ishtiha gooniyana ma hayso kaasna inuu guursado waa sunna labadaas jeerba maxaa yeele guurka fawaa-id kaloo fara badana uu leeyahy nudiba waxaa la sunneeyaa liqaadirin qof awoodo qarashkii iyo wixii ka bixi kara oo man istataaca minkum ulbaa'ata ku sifoobay kaasoo taaqa ishtihaynayo shahwadii ay hayso aw amase qaadir wey waa awoodaa ishtiha ma hayso laakiin taraka wuxuu ka tegay atacabuda cibaadaysigiio yacni cibaado uma gogo inuu qof hadda cibaado ku mashquulahoo le cibaada iga mashquulinaysa ma ahan cibaadada waxaa ka mid a shareecadii islaamku baranayo arday cilmiga baranayo a ka mida ma ahan waa qof waajibaadkiisa caadigaa tukada oo sameeya iskana banaankiisana iska jooga nikaaxun guur a loo suneeya qofkaas guuraa loo suneeya waayahay hadda waxaan gelaynaa sifaatulmankuuxa gabadha la guursanaya tilmaamaha ay leedahay waa noocee wa bikrun gabar bikaara ah waluudun ee dhalmo badan nasiibatun ee abtirsi fiican kasoo jeeda baciidatun ka fog qofka wax guursanaya ayaa awlaa fiican gabadha la guursanaya tilmaamo badan ay leedahay muxaadarooyinkii oo guurka uga sheekeynaynay ayaan 6 xalqo uga sheekeynay 3 xalqo oo lagu dooranayo waxa gabadha ninku guursanayo uga dooranayo iyo 3 xalqoo dhammaystiran oo gabadha laftigeedu ninka ay guursanayso waxay ku dooranaysaa uga sheekeyna hadda laakiin si guud wuxuu sheegay maalanba waxaa haddii ay kuu sinmaan gabar bikaara ah iyo gabar lasoo guursaday waxaa fiican gabadha bikaaradaha fiican ilaa 6 meeloodaan soo sheegnay oo markaas taas gabadhaas lasoo guursaday la hormarinayo haddana waluud inay taho gabar dhalmo badanoo haddayba bikaaro tahay dhalmadeeda waxaa laga ogaanaya waalidiinteedii iyo hooyadeedii iyo yani dadkaas ku xiraa laga ogaanaya qaraabadeeda ah inay tahay dhalmo badan haddana waduud ahoo kalkacayl badan nasiibo ah oo gabar dad fiican kasoo jeedo maalanba waa dadkii wanaagsanay oo culummadii islaamka iyo dadka akhyaarta oo fiificanay kasoo horjeedaa macnaha ma ahan gabar oo wacalnimad ku dhalatay ma ahan mana ahan gabar oo maaragtay meel laga helo abtiriskeeda la aqoon gabar oo qof faasiq ah oo liito macaasilo uu dhalay maahan gabadhaas marka nasabka wanaagsan noocaasa lagama wado nasabka qabyaalada soomaalida isku qabyaaladayso
baciidatun haddana fog fiican. baciida inay tahay waxaa laga wadaa gabadhi waa qaraabo laakiin qaraabo kaa durugsan. waxay ka fiican tahay qaraabada dhow, oo qaraabada dhow waxaa la yihahdaa shahwadiya daciifayso inuu ilmuhu uusan hagaagina dhici karto tayadiisa. haddana caafimaadku waxbuuba ka ogaado labadii qof mar hadday ilmo adeerka koobaad iyo ilmo abtiga koobaad iyo ilmo eedada koobaad iyo ilmo habreedka koobaad hadday noqdaan waxaa dhici karta maadaama awowgoodii uu isleeyahay in labadooda isku cudur ay wada qabaanba oo dhaxaltooyo ah, markaasna cudurkaasi uu keeno in uu ilmihii u gudbo khatar halkaas ay ka dhalato. marka qaraabada dhow oo koobaad oo eedda iyo adeer iyo habaryar iyo abti iyo koobaad gabadhay dhaleen waa laga fadli badan yahay, waa laga fiican yahay, waana banaanta guurkeeda. marka qaraabo fog inay tahay ama ay ajnabi tahay oo aysan qaraababa ahayn, ajnabiga oo aan qaraabadaada soo gelaynba, labadaasa fiican. qaraabo durugsan ama maaragtay ajnabi inay tahay, taasaa owlaa fiican. taas marka sifaatulmankuuxa shantaas wada ku sheegay. wuxuu sheegayaa masaa'il kale hordhaci ka simada oo sunnooyina. wuxuu yidhi wa khudbatun khudbad ayaa sunno ah, lahu guurkiiya khudbadii sunno u tahay. oo markii maalanba guurka la ridayo, qofkaas guurka ridayaah weligii hadduu yahay, shiikhu wakiisha haddii uu yahay, inuu khudbatu nikaax u akriyo. khudbatu nikaax iyo khudbatulxaaja badanoo isku mid ah, inuu khudbad akriyo oo guurka u khudbeeyo khudbad intuusa guurka ridin ayaa fiican. marka khudbatun khudbada sunno ah lahu guurkiiya u sunnata weliga ama markaas qofka u wakiisha uu rido. walikhidbatin sidoo kale wa khudbatun khudbadaa sunno ah, likhidbatin doonistana khudbad ayaa u sunnaa. oo marka wax la doonayana khudbada u sunnaa. khidbada waxa weeye maalanba marka reeruhu ay gabadha isweydiisanayaan, maalanba qofkii khaatibka wax doonaya inuu inta khudbad yar akriyo, bismi illaahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah, inuu inta yiraahdo u yiraa uriidu kariimatakum, iyo haddii ay badan yihiin dadkii nuriidu kariimatakum ay dadkii wada socday markay gabar doonayaan, ayna wiil ayaga u doonayaan, gabadhiinaan rabnaa wanaagsan. marka inay khudbadaas soo hormariyaan qofka khaatibka wax doonaya waa sunno. sidoo kale waxaa kaloo sunnaha mujiibka qofka ajiibaya oo leh gabadheeni waa idin siina, asagana inuu khudbad sameeyo. marka likhidbatin labadaas isku jirta, doonistii waa qofka wax doonaya iyo kan u jawaabaya, ayagana inay khudbayaan a sunnaha. marka wa khudbatuna waa la sunneeyaa, likhidbatin doonista loo sunneeya. waayahay wanudiba waxaa kaloo la sunneeyaa nadaru gayri cawratin, cawrada inta aan ahayn oo la eego ayaa sunno ah. qabla taraadin, inta aan la isku raali noqon ka horna ayay sunno tahay. walow takafulan walow kaana nadaru fiiradu haba ahaato ha dhacdo takafulan zamana takafulin, ishalmaan waqtigiis. macnaha wuxuu sheegaya meeshaan masale kaloo sunno ah, gabadhii iyo ninka isguursanayaahi waxa weeye inay is arkaan inta aysa isguursan, sunno weeye, wax fadli badan weeye. xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay ku boorisay. xagee la iska arkayaa? hayra alcawra. oo gabadhii maalanba ninka wuxuu ka arkayaa wejiga iyo calacalaha, cawradii salaada weye. cawradii salaada intii ay dabooli jirtay maahana inta kale ayuu ka arkaya. wejiga iyo calacalaha maalanba qasab kuma ahayn gabadhu inay qariso, intaas ayay ka arkaysaa, intaasuu ka arkayaa ninku gabadha. gabadhi xaggee ka arkaysaa? culamada qayb waxay leeyihin hayru alcawra maadiba cawratu salaa layri, xudunta iyo jilbaha maahana inta kale way ka arki kartaa. xudunta iyo jilbaha inta ka dhexaysa maahana inta kale waa ka arki kartaa. qaybna waxay leeyihiin sida gabadha oo kale wejigii calacalaha uu ka fiirinayaa. marka wejigiina wuxuu tusinayaa quruxda qofkan, calacalihiina waxay tusinayaan jirka kale sida uu yani barwaaqadiisa iyo wixiisa kale. marka qabla taraadin uu yiri, intaan la isku raali noqono, maalanba waa qabla khidba, gabadha intuusan doonin. marka gabadhi uu doono kabacdi hadduu yiraa waa arkaya, uu markaas kabacdi ka noqdo, gabadhii niyadda ka jabaysa, khatar weeye. marka waxa weye intuusan doonin ka hor ayuu iska arkaya markuu go-aan qaato. ilaa dhowr shuruud ay leedahay. haddii ay rabtaba zamanu takaful ha ato, yani ayadoon iska jirin ninka uu arki karaa. shardi maahan inuu u sheego uu ogeysiiyo, bal inuusan u sheegina fiican. maxaa yeele hadduu u sheego waxaa dhici karta in la isqoriyo. hadda maanta mayka abaab inta la iska buuxiyo qofkiiba qof kala noqonaya. marka iyaduna isagoon iska jirin ay arki kartaa, asaguna iyadoon iska jirin uu arki karaa markaas. waayahay marka wuxuu yihi wanudib waxaa la sunaa nadaru gayri cawratin, cawradii wixii aan ahayn, cawradii salaada wixii aan ahayn
oo la fiiriyo qabla taraadin intaan la isku raali noqono yani qabla alkhidba doonista ka hor walow kaana nadarkaas haba ahaado ama walow waqca nadaru ha dhaco takafulan zamana takafulin halmaan waqtigiis waqti gabadha aysa isogeyn wailaa ninkii uma suuragal ahan gabadha inuu arko ama maba uusan doorinba labadaas maada waa ilaa iskula jirto wailaa haddii uusan doonayn inuu gabadha asagu arko ama aysaba u suurtagal ahayn inuu asagu arko istawsafa waa tilmaansadaa oo tilmaan macnaha tilmaanu dalbaa wey tilmaanu dalbaaho yani dalab alwasfa qof usoo tilmaamuu usoo dirsado maalanba dad qaraabada ah oo ragga maxaramkeeda ah oo arki kara ama gabdho usoo dirsadaa inay usoo arkaan gabadhaas oo kasoo arkaan muuqaalkeeda markaas waxaa dhici karta xataa intii asaga u arki kara ka badan inay gabdhuhu uga soo tilmaamaan marka istawsafa dalab alwasfa tilmaanu dalbadaaho iisoo arku yirah dad soo arki karu yirah iisoo ark waayahay kahiya gabadhiyo kalaba lamid ah yani gabadhuba kahiya waxa weeye ayaduba sidaasoo kale u arki kartaa haddii aysan arki karinna ay tilmaan waxa weeye uga dirsan kartaa dad usoo arka ninka sidoo kale idan uma baahno zamanu takaful ay arki kartaa marka kahiya intii o dhan iskula jirta yani fiiradiya u banaan ayadana kayr cawrada intaan ahayn ay ka arki kartaa cawrada salaada intaan ahayn waqti uusa iska jirin arki kartaa waa ay haddaysa doonayn inay aragto ama maaragtay aysa u suuragal ahayn waxay wakiilanaysaa qof kahiya sidaasoo kale wey waayahay ka waran haddii aan si kale la isku arkin sawirkii ma la isku diri karaa ma lagu kaaftoomi karaa culamada mucaasiriinta masaladaas waa isku khilaafeen annagoo hadda sawirku xaaraan miya mase xaaraan ma ahan aana ka hadlayn waxay leeyihin culamada mucaasiriinta intooda badan waa la arki karaa sawirka waa ku filnaa karaa laakiin waa halistiisuu leeyaho gabadhii haddii ay nin khatar oo shaydaana inta iyadoon faham ogeyn u dirta sawirkeeda uu hadhow si xun u isticmaalo iyo waxyaalahaas khatar wey marka qofki sawirkii calaa kul xaal waa lagu kaaftoomi karaa laakiin in la digtoonaado muhiima ninkuna gabadha islaameed sawirkeeda inuusa iskaga haysan mobileka laftigeeda muhiima marka uu hubsado qofka ay tahay uu iska tiro ay qasabta waxaruma waxaa xaaraama nadarun fiiro ayaa xaaraama wa tamaasun istaabasho ayaa xaaraama bayna dakarin waqacaa bayna dakarin ninkii iyo wa unthaa gabadhii dhexdooda dhaceen waxa weeye ninkii iyo gabadhii ajnabiga kale ahaa haddii aysan guur hawshu ahayn ee aan wax xaajaaho kala keenta aysan jirin inay istaabtaan jirkooda ama ay is arkaan ma banaana salaamtan dhalinyaradu ay gacanta isla gelaysa iyo dadki is aqoon jira iyo dadka ilmo adeerada iyo dadka qaraabada iyo ma jirta taas marba haddii maxram aysa ahayn ama labadii isqabta aysa ahayn salaan nin iyo naag ajnabiga is salaamaan oo ismusaafixayaan ma banaana ama jirka kale iska taabtaan ama isfiirsiga aan daruura keenin xaruma waxaa xaaraama nadarun daymo iyo wa tamaasun istaabasho waqacaa dhaceen bayna dakarin nin iyo wa unthaa gabar dhexdooda oo ajnabi kale ah walow kaana annadaru wallamsu taabashada iyo fiiradu haba ahaadeen fii cudwin xibin dhexdiis mubaanin la jaray fii cudwin mubaanin xibin la gooyey ka qulaamatin waaba cididii oo kale xibin la gooyo xataa haba ahaatee in oo yani uu iska fiirsado qofkii lama ogola haddii uu yaqiiniyo inuu xibinkaasi gabar ajnabiga ka yimid ma la ogola haddii kale xaaraamaha ka qulaamatin cidihii oo kale marka maanta waxaan banaanayn inaad haddaad tiraahdid xibnihii gabdhahan isticmaalaya taas lama ogola hadda markaas oo maalan ba aad dadkii hadday waxaan maantay jirkii la isku dhadhajinayo dhan inuu xibinkeedii xibin yani xibnaha hadda jirka o dhan iyo waxay cidihii o dhan waxaas o dhan ka hadlaynaa iyo tintii o dhan lama ogola markaas waayahay laa lixaajatin baahi haddii ay keento maya laa yaxrumu nadaru fiiradii xaaraam ma ahan lixaajatin baahi darteed uma xaaraam ahan haddii baahi ay timaado baahidii waxaa ka mida maalan ba waa dhakhtarkii oo taabanaya gabadhii jirkeedii waxa weye waxaa qofkii markhaatiga u arkayay qofkii wax ka iibsanaya oo mucaamaloonayay waxyaalahaas xaaji haddii ay timaado baahi haddii ay timaado is arkidu xaaraam maahan taabashaduna xaaraam maahan wa shidatiha walaa lishidatiha xaajadii daraashaheeda oo xaajadu daraatana xaaraan uma ahan fiirada iyo taabashadu nisbatan lifarjin
xibinkii taranka haddii loo eego. haddii qofka laga arkayo xibinka taranka waxaa kaliyoo la ogol yahay in baahi khatara ay jirto aad ay u daran tahay baahida iyo daruuro inay keento, waa daruuro inay dhacdo oo maalan ba umulisadii dhakhtarkii oo maaragtay yani caafimaada xibinkii taranka loogu baahday, waxyaalahaas markii ay dhacaan ama markhaati haddii oo zina iyo waxaas ay dhacaan lagu markhaati kacayo, waxyaalahaas bis a banay kara xibinka taranka oo la arko, rag iyo dumarba laga arko. marka washidatiha baahidii oo daraato aad u daran kaliyaha loo ogol yahay nisbatan lifarjin haddii xibinka taranka la eego. yani laa yaxrumu nadaru nisbatan lixaajatin waa mutlaqu xaaja markaas, walaa yaxrumu nadaru liajli shidati alxaaja baahidu haddii ay daraatana uma xaaraam ahan nisbatan lifarjin xibinka taranka haddii loo eego. walaa maca siqarin yaraantii micigeedana, walaa bisiqarin walaa maca siqarin yaraantii micigeedana xaaraam ma ahan istaabashada iyo is-eegidda, oo haddii ay dadkii yaryar yihiin saqiiradii ama maahane midkoodba uu yar yahay isfiirinta iyo istaabashada midkoodna xaaraam ahan. walaa xilli istimtaacin ku raaxaysigii banaanaashihiisana xaaraam kuma ahan. haddii ku raaxaysiga uu bannaan yahayna maca xilli istimtaacin ku raaxaysiga banaanaashihiisa micigiisana xaaraam ma ahan is arkida iyo istaabashada oo waa xaaskiisii oo kale. bikurhi nadari qubulin maca kurhi nadari qubulin xibinkii taranka la fiirintiisa karaahiyanimadkiisa lala qabo. oo waxa weeye haddii ayba labadii isqaba yihiin oo istimtaaci bannaan yahay, istaabashana xaaraam mahan, jirkooda meeshay rabaan inay iska arkaanna xaaraam mahan, laakiin wuxuu leeyahy qubulka oo xibinkii taranka ah iyo duburka lamida meeshii saxarada inay iska fiiriyaan ama iska taabtaan oo gacnaha isku taabtaan yani sunno ma ah, ma fiicna yani. fiirada wey, fiirada hadda taabashada maahan, waa nadarka in oo la fiiriyo xibinkaas taranka ama duburka oo indhaha lagu eego, nadarkaasi waa xaaraam wey. marka bikurhi nadari qubulin qubulka ow duburin dabadii fiiradeeda karaahiyanimadkeeda lala qabo oo in la fiiriya karaahiya. walaa yaxrumu xaaraam ma ahan nadaru mamsuuxin qofkii la masaxay fiiradiisa, oo waxa weeye qof oo ilaahayba uu ka masaxay xibinkii taranka iyo xaniyihii labadaba. waxaa kala jira mamsuux iyo maalan ba khisi iyo qof la yiraahdo iyo majbuub iyo waxyaalahaas iyo ciniin iyo marka mamsuuxu waa qofkii xibinkii taranka iyo xaniyihii labaduba ay ka go-an yihiin. kaas marka haweeney ajnabiya inuu ka fiiriyo wixii xudunta iyo jilbaha dhexdooda mahana inta kale xaaraam maha laleeyahy qofkaas maadaama uu dumar oo kale uu la mid noqday. waa yahay laakiin haddii uu yahay majbuub oo xibinka taranka kaliya ka go-an, xaniyihii waa u joogaan, ama khisi uu yaho xaniyihii ka maqan, ama ciniin uu yahay qofaan xibinka u kacayn, kuwaas xaaraam weye, kuwaas lama ogola. marka walaa nadaru mamsuuxin walaa yaxrum xaaraamaha nadaru mamsuuxin kii la masaxo labadaba laga masaxo xaniyaha iyo xibinka taranka fiiradiisa inuu fiirsho haweeney ajnabiya maa waraaa suratin xuduntii iyo warugbatin jilibka wixii ka dambeeya, labadaas dhexdooda wixii ka dambeeya inuu ka fiiriyo xaaraam ah, laakiin xudunta iyo jilbaha dhexdooda maya. oo qofkii intii dumarku iska arki kareen uu ka arki kara, yani dumarka caadiga ahi xudunta iyo jilbaha intii ka dhexayda iskama arki karaan, laakiin intii ka koreyda hadday isku agbanaysaan dhib male, qofkaas la masaxayna saasuu lamid noqona leeyahy. wa cabdiha walaa nadaru cabdiha haweeneydii addoonkeeda asna inuu ka fiiri yahay xaaraam maahan maa waraaa suratin warugbatin xudunta iyo jilbaha inta u dhaxaysa maahane inta ka xagaysa inuu ka arko xaaraam maahan. addoonkeedii waa haddii ay sayidadii waqtigii lays addoonsanayay markaas laga hadlayaa, haddii labadooduba ay cafiifan yihiin oo caadilan yihiin weye, ninka addoonkaas iyo iyaduba. walaa maxramin walaa nadaru maxramin qofkii maxramka ahaa inuu fiiriyahayna xaaraam ma ahan maa waraaa suratin warugbatin xudunta iyo jilbaha inta ka dambaysa inuu ka arka xaraama. oo maalan ba aabihii oo kale gabadhiisa inuu haddii ay ku agbanaysato xudunta iyo jilbaha inta ka dhexaysa mahan inta ka kale dembi kuma dhacayso, asna arakideeda dembi kulama dhacayo. walaalkeedoo kale, adeerkeed runahoo laxmiyahoo kale, abtigeed laxmiyahoo koobaad oo kale, dadkaas maxramka ah laga hadlaya. ilmihii hooyadii wiilasheedii oo waaweynaday, marka maxramku intaas iska arki karaan.
waayahay waka maxramin mumaathilun wa mumaathilun qofkii la midka ahaa oo mumaathilka ahaa ka maxramin uu la mid yahay mumaathilku waxa weeye yacni laba gabdhood imisay iska arki karaan laba nin imisay iska arki karaan xudunta iyo jilbaha dhexdooda maahane inta kale iska arki karaan hadday isku agaqowsadaan waxa weye inta kale dembi kuma dhacayaan laakiin xudunta iyo jilbaha dhexdooda iskuma agaqowsan karaan bowdooyinka hadda dhallinyarado kale waxaa laga yaabaa nigis yar oo gaaban inuu inta xirto uu dhallinyaradii kale la ag joogo markay isku aglabisanaan ay dharka isku ag dhiganayaan lama ogola xudunta iyo jilbaha inta ka dhex leh layskuma ag banaysan karo wa mumaathilun kii la midka ahaa oo laba gabdhood ama laba nin markay wada joogaan ka maxramin ay la mid yihiin inta maxramka iska arki kareen ayay iska arki karaan walahumaa mumaathilkii iyo maxramkii waxaa u sugnaaday masuhu masul kulli mid kasta kan kale inoo taabto masu kullin minhuma yacni gabadha maxramka labadii gabdhood jirkooda waa istaaba karaan labadii nin jirkooda waa istaaba karaan dadka isla mathalka ah sidoo kale maxramkii labadii maxram jirkooda waa istaaba karaan iskuma dambaabayaan markaas istaabashada dadka ajnabiga ah weeye markaan soo dhahayna waxaruma nadarun watamaasun bayna dakarin wa untha waa nin iyo naag kale ajnabiga laakiin laba nin inay jirkooda istaabtaan laba gabdhood jirkooda istaabtaan maxramkii jirkooda istaabto dadkii maxramka isku ahaa taas lama diidayo marka walahumaa maxramkii mumaathilka waxa u ahaaday masuhu masu kullin minhumaa mid kastoo ka mid a inuu kan kala taabto wa muraahiqun qofkii qaangaarka ku dhowaaday ka baaliqin qaangaaroo kaloo la midi cunugii haddii uu qaangaar ku dhowaado maalanba dadkan tiin ay jirka galay oo maalanba 13 iyo hadduu soo gaaro waa haddii uusan ku qaangaarin ka hor yani 9 ka bacdi hadduusan qaangaarin cunugii laakiin uu soo weynaado 12 wixii ka dambe uu soo dhaafo gabadhiina sidoo kale ay soo dhaafto qaangaaray la mid yihiinoo waxaad iskaga ilaalinaysaa sidii dadka qaangaarka ahaa dadka qaangaarka oo kale aad iskaga ilaalinaysaa marka waa muraahiqun qofkii qaangaarka ku dhowaa tiin ay jiradii oo kale wixii la mid ah aanan kusoo qaangaarin waxyaalaha lagu qaangaaro intii ay yaryaraayeen 9 ka bacdi aan kusoo qaangaarin ka baaliqin uu la mid yahay qof qaangaaray laakiin haddii oo 9 ka bacdi gabadhi caadadii ku dhacdo ama biyihii shahwada wiilka uu helo kuwaas qaangaar weeye waa qaangaar iyagoon qaangaarin hadday kusoo dhowaadaan da'dii 15 laga hadlaya hadday 15 gaaraan markaas waa qaangaar wajaaza waxaa banaan nadaru amrada kii garlaawaha ahaa in la eego ayaa banaan oo maalan ba wiil yaroo qurxoon oo aan gar lahayn in la fiiriyo waa banaan tahay laa bishahwatin shahwo haddii ay jirta may maca shahwatin shahwo micigeed haddii uu qofku u fiirinayo waa xaaraam aw khawfin maca khawfin cabsi oo fidno laga baqayo haddii ay jirtana xaaraam wey waxtiita waa la dadaalaa bimushkilin kii labeebshaha waa lagu dadaalaa oo waxa weeye maca mushkilin mushkilka micigiisa la dadaalaho oo waxa weeye qofkani haddii uu yahay labeebshi maalan ba nin iyo naag midna kuma cadda nin iyo naagba midna kuma cadda ilahay saa u abuuray waa la dadaalaho markuu gabdhaha la joogo sidii ninoo kale ola dhaqmayaan oo iskaga asturayaan markuu ragga la joogana siday gabaroo kale ola dhaqmayaan oo iskaga asturaya marka waa qofkii aan dhinac u caddaan haddii laakiin calaamaadka lagu kala caddaado oo ku caddaado kaas dhankaasa la raacinaya hadda halkan waxaan ka gelaynaa gabadhaha maalan bashukaansiga qaybo ka mida qaabkiisa masaa'il aan banaanayn noo sheegaya marka waxaruma waxaa xaaraama khidbatu muctadati hayrin nin kale hayrka waa nin kale tii ka cidda tirsanaysay in la shukaansado ayaa xaaraama sariixan si cad loo shukaansado ayaa xaaraama wa rajciyatin wa khidbatu rajciyatin gabar ninkeedii uu cesho karoo dalqadii wax ka dhiman yihiin in la shukaansadona waa xaaraam tacriidan sarbeeb in loo shukaansado xaaraam ka jawaabin ka jawaabiha sida iyada jawaabteedii oo kale masaladan waxa weeye maalanba gabar ayaa laga dhintay ama waaba la furay dalqadaheediina waa dhammaadeen ama fasakha ku dhacay ama macnaha waxa fasakha ku dhacay yani gabadhii gabar ninku soo cesho kara ma ciddadii laakiin ku jirta ama dhimasha waa laga dhintay ama dalqadiha ku dhammaaday fasakha ku dhacay waxyaalahaas gabadhii gabar la soo cesho kara ma gabadhaas shukaansigii si cad in loo yiraahdo waa ku rabaa inaan ku guursadaan rabaa intay ciddada ku jirto ma banaana laakiin sarbeeb waa la ogolyahay inuu macnaha yiraahdo qof fiicana tahay iyo haddii ciddada ku dhammaatay soogeysi iyo
imisa rag ku doonaya iyo adoo kale yaa heli kara iyo waxyaalahaas inuu sarbeebo dhib male. rajciye laakiin gabadhi hadday tahay gabadhii ninkeedii waa furay dalqadihiina waxaa uga dhiman markasta wuu soo cesho karaa waa suuragal inta ay ciddada ku jirto gabadhaas si cadna looma shukaansan karo sarbeebna looma shukaansan karo midna ma banaan in loo shukaansado. maxaa yeelay sababaha keenay waxaa ka mid a kow gabadhi waxaa dhici karta ninkan haddii ay jacayl u qaado in ay istiraahdo yuusa kaa fakanoo ciddadii waqtigeeda ay dadejiso oo tirahda ciddadii waa ii dhammaatay. taasina waa khatar wey dembi weyn oo lagu dhacay weeye waana dhacdo intaasoo gabdhoodoo ku dhacay arrintaasoo xataa ku ilmo dhalay ayaa la arkay oo ku baraarugay waqti xaaladii ay faraha ka baxdo ciddadeedii dadejiyo ninkii ka qariyay taasoo keeni karta. waxaa kaloo loo diidayaa ninkii laftigiisaba cesho karaba oo haddaad gabadhaas ku jirtay ciddada ee rajciyada ahayd aada shukaansatid markaas jacayl meeshii soo galo oo labadoodii ay isjeclaadaan haddana ninkii hadduu yidhaahdo waa ceshada ka waran xaaskaygi waxaa ceshada guurkii waana dhacdaba arrintaasoo kalena waa dhacda khatar wey. marka wuxuu yidhi waxarum waxaa xaaraama khidbatu muctadati hayri nin kale tii ka ciddo tirsanaysay in la shukaansada xaaraama sariixan si cad loo shukaansado. marka laakiin sarbeeb waa la ogolay haddaysan rajciyo ahayn. hayra leriya asaga tii ka ciddo tirsanaysa inuu kala hadlo guurkii kala sheegayso dhib male. wa rajciyatin wa khidbatu rajciyatin gabadhii la doonayey tii la cesho karay oo ninkoodu soo cesho karay in la shukaansadana waa xaaraam tacriidon sarbeeb. marba ninku hadduu awoodo inuu soo ceshado sarbeeb waxa weeye xataa laguma shukaansan karo sariix oo cadna iskaba dhaafba. marka waxaan laakiin dhib lahayn haddii qofkaani qalbiga uu ugu hayo jacayl gabadhaas ama gabadhii ay nin kale jacayl qalbiga ugu hayso aysana wada hadlin kuma dambaabayan sida qur-aanka uu ku leeyahay aw aknantum fii anfusikum. waayahay ka jawaabihaaba la mida oo ayada jawaabkeedii gabadhi laftigeeda jawaabkeeda xukunkaanu kala qaadanayaho hadday tahay gabadhii gabarh rajciye ah oo ninkuu soo cesho karo inta ay ciddada ku jirto nin si cadna uguma jawaabi karto sarbeebna uguma jawaabi karto si cad iyo sarbeebna jawaab uma sii karto. laakiin haddii ay tahay gabar aan rajciye ahayn ciddadii laakiin ku jirto waa laga dhinta ama dalqadihii waa dhammaadeen nin sarbeeb waa ugu jawaabi karta laakiin si cad uguma jawaabi karto ninka shukaansanaya. mas'alo kale oo muhiim halkan noo sheegaya masaladan waxa weeye gabar uu nin soo doonayba haddii oo maalan baa la ogolaaday ma la shukaansan karaa intaan ninka kala guursan taasuu ka hadlaya. wuxuu yidhi waxaruma waxaa xaaraama khidbatu makhduubatin wa khidbatu makhduubatin gabar oo lasoo doonay in la shukaansada xaaraama taasoo saraxad caddaysay biridan raalli ahasho caddaysay aw ilmujbiru aw saraxa almujbiru kii qasbi karay uu caddeeyey raalli ahasho aw qaadin qaaligiiya caddeeyey raalli ahashaha nisbatan limajnuunatin tii waaleed haddii loo eego. masaladan wuxuu sheegayaa gabadhii maalanba maantay waxa weeye waa lasoo doonay haddii lasoo doonana ninkii soo doonay waa ay u jawaabto waxay tiri waa diyaara ah markaas kabacdi in oo nin shukaansado ma banaan nin kale uma banaana inuu shukaansado. ama gabadhii waa gabar weligeedii mujbirka u jooga gabar yaroon soo guursan weeye aabaheeda ninkii ogolaaday oo u jawaabay ama maaragtay awowgeeda u jawaabo aaba mama noolaba haddii uu ogolaado ayana gabadhaas nin kale inuu shukaansado ilaa kii hore laga baxo la joojiyo ama ay iyadu ka baxdo ma banaana. waxaa lamid hadday gabadhii tahay gabar waalan oo qaangaara lana raba in la guuriyo lana soo doono ee qaadigii ama garsoorihii uu yiraahdo hebelow gabadhanaan kuu guurinaya ee u ogolaado aqbalo garsoorihii in uu nin kale soo doono ayana lama ogola ilaa ninka hore kiiskiisa la xiro. waxa dhan la diiday waxa weye ilaa gabadhu way ka bixi kartaa waalidku waa ka bixi karaa qaadigu waa ka bixi karaa waa la jooji karaa ninka laftigiisuna waa ka joogsan karaa ilaa kii hore baabkiisu xirmo ala diida midkan in la furo waa colaad iyo dhibaatay keenaysa. xarum waxaa xaaraama khidbatu makhduubatin gabadhii lasoo doonay in la shukaansado taasoo saraxad cadaysa si cad u cadaysa biridan raalli ahasho iyo aqbalaad aw ilmujbiru aw saraxa almujbiru ninka qasbayahay uu cadeeyey oo aabihii ama awow gabadha hadday tahay gabar yaron lasoo guursan uu aqbalay ninka kasoo doonay aw qaadin ama garsoorihii yaa cadeeyey ogolaasho nisbatan limajnuunatin haddii gabar waalan oo baaliqana ah loo eego. hadda masaladan halkan aan ku sheegayno casharkan ugu dambeya waxa weeye haddii wiil gabar uu doono uusana aqoonu kaala tashado ku yihah ii sheeg ceebaheeda wax iga sheeg qofkaas iga waran u ku yihahdo ama gabadhii nin soo doonay markaasay kula tashato tiri ninkaas ay ku tiri ninkaas isoo doonay
haddii oo wanaag uu leeyahana waa wanaagiisa sheegaysa, hadduu cilada leeyahy qofkaas aragtay qofkaas inuusan u munaasab ahayna ceebtiisa sheegaysa. laakiin tartiib tartiiba u sheegaysa, marka hore kugulama taliyana leedahay, hadduusa qofkaas ka hakanin xoogaa yara uga sheegaysaa ilaa aad marka dambe u sheegtay dhammaantood adoo uga jeedin naseexo iyo khayr meelida aan uga jeedin iyo sid iyo fogeyn iyo colaad kale. sidoo kale guurka kaliya maahane dhan kasta qof wax ka baran kara, qof ganacsi la geli kara, qof la saaxiibi kara, qofkii lagu xirmayo khatar a ku hogto o dhan qofka kale walaalka waa u sheegaysa. marka wuxuu yihi wajaaza waxaa banaan, bal wajaba wey, waxaa waajiba dikru caybi khaatibin qofkii wax soo doonayay ciladiisa in la sheego, wa makhtuubatin tan la doonayana la sheego, waa lamid, labadaas bu isla mid. markan talayna ka ahaanaysa sida nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu yihi abujahmi usha qoorta kama dhigo, mucaawiyana waa faqiir. wajaaza waxaa banaan, bal wajaba waxaaba waajiba dikru caybi khaatibin ninka wax soo doonay ceebtiisa in la sheego. oo haddii gabadha nin soo doono aad tira ninkaas kugulama taliyan, haddii ay diidan si cad ceebtiisa ugu sheegtid haduusa u qalmin wey oo khatar uu ku yahay gabadhan. wa makhduubatin iyo tii la doonayo nin gabar doona haddaa argtay gabadhaasna aad cilado ku ogtahay ninkan dhib u keenayo aysa isu qalmin, waa u sheegaysa waxaa leedahay kugulama taliyeen. qofkii kaleo dadka kale xataa waa la mid, haddaa aragtid qof walaalka qof la ganacsan raba, qofkaanana khaa-in uu yahay ama khatar uu yahay, qof walaalka oo qof kale la saaxiibi raba, qof wax ku darsan raba, hadaad khatar ku ogta waa u sheegaysaa, xataa haddii uusa ku weydiin ayaad u sheegaysaa. casharkan intaasa ku joojirana wabilahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.